aniga ma rabo inay iga carartay shaqaalahan ha ku joogto guriga ana sekretar ahaan ku joogto waxaan waqti walba agteeda inaan ka arko isu dhawaato waa ogfaham si fiican ku fahmay laakiin haddii ogaato adiga iska dhaafay macal familkaaga sharciga inay ka fogin oo injineer aad tahay bal maxaa sameynaya ii sheeg markaasoo ka ordayay taasaan baad ka fikiraya qorshiisi adiga kan go-aankan halmad samaadiga انت قولي يا جوت ما عرفتي هذه افوكاتو مثل معناها مركز كبعدي اسمع هام وحا وشكتا وحاطها اوكي سوق صباح وناكسن وناكسن مدني وقتي هذا بلا مسكور يعني متكوب شاي ينقصوا ديارنا يا ما سنت واعب شاه فريسو كيس كان أقول سنة يعني ود أورادنا يا كيس ميا ود ما أورادنا يسمع ها حاجة أقوم بشغل سنة علي قرم كسي مدني ما استدا نصو ما أنت شغل كورس مدونا شغل تدنا دي قاعد تمرك أنا أقوم بشغل مدونا لكن ما سمعنا كيس كلام كودي بقى حل أورادنا يا أوكي وانا important يا كيس اوكي مدني اوكي waxaa qortaa wiilka magaciisa waxa weeye Rashmanota waana engineer wiilkaas gurigan kaligiisa ayuu ku yahay macnaheedu iskaabul marka sidaa dadka guriga hoostiisa uu kala qaban waayay wuxuu go'aan gaaray shaqaale guri inuu samaysto markaas kadib gabar shaqaale ayuu dalbaday gabadha guriga waa u timid isagana wuu shaqasiiyay laakiin sidii ka jira wuxuu yahay Rashmanota gabadhi uu talagalay inuu shaqo siiyo uma imaan gabadh kale oo sekretar ayaa si qaldan gurigiisa u timid taas ku qaldan yahay ninkaas maxaa yeelay gabadh mutacallimada haddii u timaado inuu u sheegay runta maxaa yeelay waa gabadh mutacallima shaqaale ma noqoto maya raash ma doonin gabadhaas inay ka fogaato maxaa yeelay wuxuu ku fikiray gabadhaas gurigiisa hadday timaado inuu warfaayo gurigiisa hadda Soomaaliya gurigiisa wafi gurigana maya raaj ma noqon gurigiisa gabadha ماشي جعلة جرا ومالينا مدني exactly جعلة يا جرا اوكي هذا سؤال ماشي طالع ايا وحا بريكا مالين gabadhaas hadii ogaato wiilkan inuu qiyaanay ma dacweynaysaa mise kale si deganaan ay arintooda ku wada dhamaysanaya oo way isfahmayaan arintaas inaan ma ilisoo saartan rabaa horta labada qof markaan arko aan ogaaday inaan arinta xallin karaa marxaba هذا حفيز كان هذا حفيز كان ما محكمة هذا أرين أيام ربعنا صوح عليه مركا أديك السيجوج أنت تسيجوج يسمى بوقت شرعي سي أخرسه أوكي مدن وقفعان سيف عن وسي أخرسه فكرة آيات كهذا يساب وقتها ويا مدن أوكي تليفون كيجا وكان لعله هدو يصدعه سكرتاري كيجا تاي مركا سودو بيتك أنت نقل بيك فكر يا مسكح لك فكر أوكي سد جنان وفكر ويا مدن راج من هذا العاوي راج من هذا يا واي راج من هذا الكويتي راج من هذا هذيك مقرنة اسمها وانا قانا أبوكاتا صاحبك سومها هذا ضدهم لكن أسيقاو أسيق قرقي سوجرانا واي قرقان يا اسكالي او تقني شك أبوكاتا جوتاني يا اسكالي أبوكاتا جوتاني اسكالي وحقاك معناه وعواي أنيقا قرقان انتقنها guriga lambarkiisu yaa 13 ayaan korontadii saddexyaa raashin ka cunaa waan jiiftaa waan seexdaa haddana intaan deganaa maaha maadiga abukaat ram haa jotaani ram aniga waay gurigaasaana leeyahay inta waxaa iska leh raaj ma garanaysaa hadda buwag abukaatanimo ah ayuu uga soo tabalsaday buwagta ayaan u baahanahay ma qaadan karaa oo kuwaanahay qaado ها كيس أوسف فرم مركب كم مارو يسيبر
بالفيري ما شو ديك فيري شرعي وحكم يقانو تبلو صوتنا يا بدنا واي نبديت أنا حاجة دقنا يا وصل أنا كده داركت نصيبك هتقبضها أنا حاجة جراء اسمك ما نصيبك هتقبضها ها وحاجرو دول صاحبكيga magaciisa la dhaho Raj Manotra waa engineer gurigana waa kaligiisa marka wuxuu ku fikiray shaqaale inuu guriga kaaslo oo guriga ugu shaqeyso gabadha shaqo soo doonatay gabadhina uu shaqeysay adiga hawsha qabanaysa ma la socotaa arrintan ka fikir waqti sharcigan siyaaqas arrintan marka ka fikiraysidna maskaxda ka fikirinay qalbiga ka fikiraya qalbiga Raj gabadhan waa uu ka helay oo jeclaaday wuxuuna ku fikir gurigiisa haddii sii joogto inuu gurigiisa sii ifaayo معناها جعل يا ماشي سماها ها exactly وعن كله كان قولي كم يوم مسوا قولي كله مدنا واحد تلفونك ومسوا دعين ضمنك وميمانين قولي كم كعاد درتت بحال فكري أنا أكون نظيفية واو لسه ما بدها قولي كم وقولي سكاب ولا ما كيات كلي مدنا كيسك محكمة ده يقولون بد حقوق كتن بينه كيسكي ها كيس سوما كيس كان هو كوغولست maxay aanay guul daro magacaadeysanno maxkamadda markaan tagay wixii ka soo horjeeda meel aan iska saaray markaan ku guuleystay dadkoo dhan way wadiyay xataa garsoore wuxuu yiri saaxiibo booskiga aan ku banay markaas aan dhahay xishoodsiin mudan garsoore way kusidii hay adiga ii waran kiiskan ku dhibay maxalisa oo ninka saaxiibkay ku saabsanaa iga waran qalbiga ma fikirtay kiiskii qalbiga run ahaantii mudane qalbiga iyo maskaxda inta buu ka fikiray waa kiis aad iyo aad u dhib badan maxaa yeelay gabadha way ku dacweyn kartaa wiilka wadda maxkamadda looga badbaadayna ma jirto aad u dhib badan yahay oo hadda ma badbaadayna wadda male maxkamadda run ahaantii wadda looga badbaadaya male laakiin maxkamadda intaan la gaarin ka hor wiilka wadda kale waa loo heli karaa xal ah oo sidee ah gabadha horta sidooda banaanba gabdhaha waxay jecel yihiin runta in loo sheego wiilka saaxiibkaa la tali gabadha runta ha u sheegay jecelkiisa ha qirto yaa afku wax kama sheegi kara ninkaas anaa og maxaa dhagolmey dhagol ma karti ma leh uu ku hadlo hal ra'yi aan ku siiyano hadduu afka sheegi karin waraaqa soo qoro waraaqda markuu u soo qoro waa u sheegi karaa waraaqda u gudbinaysa adigana garab ku siiyay saaxiibkaa waa qorshe aad iyo aad u fiican haddaan wada qorina qalin iyo warqad qaba anaa kuu sheega hadalka haye magaca hore aad qoraysid waxa waaye Priya ya maya ha qaldamin gabadha magaceedana waa Priya Priya marka ugu horeysa aan ku arkay waan ka helay marka sidaa darteed ma aanan fiirin shaqada aad u socotid inay tahay mid shaqaale guriga ama sekretari waxaan ku fikiray gurigeyga inaad ii joogtid oo mar walba agteeda aad ka muuqatid waxaan iska cabsaday runta haddaan kuu sheegay inaad iga carartid waxaase macquul ah inaan ku jeclaaday haddii aan qalbigaaga dhaawacay waxaan kaa codsanayaa inaad iska cafisid Raj Manotra ma ku qoraa hoos ها هوس كفر بريا قبل أن ورقة دي أخلصته مو واحد كولته إيه كنت هذين سامس إنه يصور بينش هدي اسم تعرفين لين كبداس أبوكاتي دكتور ويمد أولي بوجاتي صدقتي يدو أرنتا صدقك بس أنا قولوا ما يسكون أحفظ لذين وأذيكم ما يسكتين أنت قولوا يا فردو راج مناظرة ورق وما يقتين oo hadda runtii ma ogaatay adiga ha kale oo hadda waxa ka maqan ma qoraal aad ka tahay waxba kama qabo ka
hadhabba